roobabkii guga ee sida wanaagsan uga da'ay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay waxyeelo baan soo gaarsiiyeen xabaalihii hore ee galbeedka magaalada Boorama halkaasi oo qaarkood lafihii dadka dibadda u soo saareen qaarkoodna ay degeen oo ay ceelal noqdeen meeshan ay xabaaluhu ku yaalaan ayaa waxay noqotay dix oo daadku maro iyadoo oo maalmihii uu roobku da'ayay uu daadku ku qaaday hal qof oo ku qurwaayay iyo gaari nooca loo yaqaan laangurusala xabaalahani oo ah kuwa ku yaala dhul baaxad weyn ayaa waxa lagu wadaa dayactir ballaaran kaasi oo maalin kasta oo jimco ah ay ku dareeraan dadweynaha magaalada Boorama waa kan mid ka mid ah shaqaalaha dar Ilaahay uga shaqeynaya ee ku shaqeynaya xirfadda wastaadka isagoo ugu baaqay inay dadweynuhu kala qayb qaataan muruq iyo maalba waxa ay karayaan sidoo kale waxa iyaduna ka warbixisay hooyo ka mid ah hooyooyinka magaalada Boorama iyaduna si tabaruca uga shaqeynaysay halkani waxaa mahad soo jeedinayaa intii hawshani ma arkaysaa kolka horeba dhaqaajisay waxaa mahad soo jeedinayaa dadka shaqaysanaya ee xoogooda ku tabarucaya waxaan mahad soo jeedinayaa intii hantida bixisay sibid iyo miis iyo dhagax iyo hawl walba intii bixisay baan mahad soo jeedinayaa waxaa soo jeedinayaa shaqaalaha ku tabarucay xoogooda waxaa u dirayaa ma arkaysaa baaq inta ma arkaysaa danaynaysa xabaalaha inay wax ka geysato danaynaysa baaq baan soo jeedinayaa haday ganacsato tahay iyo haday kuwa xoogooga ku xamaala ay tahayba waxa mahad baaq u soo jeedinayaa shaqaalaha gobolka oo ma arkaysaa aan saluuganayno inay jimcihii yimaadaan meel kasta ha joogaan jimcaha ka soo qayb galaan waxaan walaal ugu soo dari lahayd baan ugu soo baxnay inaan xoogayaga waqti ula baxno dadka walaalahay xabaalaha ku jira inaan ka qayb galno shaqada qoliga dadka walaalaha iyo intii dibadda joogtay maanta maqlaysaa inay ka soo qayb gashaan jecel lahay Axmed Faarax Barqad Axmed Barakaale shabakada wararka ee Boorama Online Boorama